الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah maalin sabti ah taariikhdana tahay 17 bisha Juun sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 22 bisha Ramadaan sanadka 1438 ee hijriyada. Mareykanka markab dagaal ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo shil galay. markabka ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa wararku sheegayaan in uu shil galay. waxa ayna wararku sheegayaan in shilkaasi lagu leeyahay 4 ruux oo ka mid ah ciidamada badda. markabka dagaal ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa ku dhacay markab kale oo siday xamuul asigoo oo marayay meel 104 kilomitir dhanka koonfur u jirta magaalada Yokosuka ee dalka Japan. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in shilkaani uu sababay dhaawac 2 askari oo ka tirsan ciidamada badda. hase yeeshee wararka ayaa sheegaya in durbadiiba loola cararay isbitaal. Liibiya magaalada Benghazi ee dalka Liibiya ayaa laga dareemayaa burbur xoog badan oo soo wajahay kadib dagaalo badan oo halkaasi ku dhex marayay maleeshiyooyin halkaasi ku dagaalamay. dalka Liibiya ayaa ilaa iyo hadda ka jirin nidaam sax ah laga soo bilaabo kolkii la dilay madaxweynihii hore ee wadankaasi Colonel Muammar al-Gaddafi ee dalkaasi soo xukumayay ku dhawaad nus qarni. Masar wararka naga soo gaaraya dalka Masar ayaa sheegaya in maxkamad ku taala dalkaasi ay xukun dil ah ku xukuntay 30 ruux oo ay sheegtay in lala xiriirinayo dilka Hisham Barakat oo ahaa dacwad ooge. Hisham Barakat ayaa ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay ee la dilay kadib markii qarax lala eegtay gaari uu saarnaa. waxa ayna wararku qaar sheegayaan in ninkaasi dilkiisa lagu sababayay in uu gacanta ku hayay kiishash badan oo ku salaysan ururka Ikhwaanul Muslimiin. Afghanistan wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in lagu dilay 4 askari ee Mareykan ah. waxa ayna wararku sidoo kale sheegayaan in shakhsiga weerarka geystay uu yahay askari Afghanistan ah. Abdulqahar Aram oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay in askariga weerarka geystay uu ahaa askari ka tirsan Afghanistan uuna 4 askari Mareykan ah dilay. hase yeeshee uu sheegay in ay baarayaan weerarkaasi. waxaana halkaasi aan ku soo afmeeraynaa wararkii saacadlaha ahaa ee aad kala socoteen telefishinka BSS oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciidu warkaani seegana waxay ka heli kartaa barta aanu ku leenahay internetka oo ah www.bssomalia.tk.